So points badan baa jirta aan maanta igala wadaagi karo oo aan idin sheegi karo sida ugu fiican ama habka ugu fiican aad GP-ga appointmentkiisa aad uga faa'iidaysan kartaan. laakiinse marka ugu horeysa dadku waxay ku dhagan yihiin inay GP appointment helaan waa waxay runtii wadankan ka jira oo GP-yada ku yar wadanka staffka aad ugu yar yahay dadkii iyo baahidoodana iyo dadkii laftigooda tira batay marka waxa muhiim ah marka ugu horeysa GP-gaaga aroortii sida ay ku sheegeen 8 aroornimo dadalkooda yiraahdaan exactly baad soo wacaysaan oo ballan weydiisanaysaan dadka badankooda waxay yiraahdaan ma helo appointment laakiinse ogaada GP kasta wuxuu leeyahay wax la yiraahdo on call doctor ama dhakhtar ku saabsan emergency-yada kaliya so for example waxaad rabtaa inaad 10 aroornimo qof wacdi oo tiraahdo waxba igu dhacay oo emergency oo kale ah marka waad la hadlaysaa receptionka waad wacaysaa waxaad leedahay arrinteedu waa emergency waxaa laga yaabaa receptionistka inay dhowr su-aalo ku weydiiso oo ku saabsan emergency-gaaga wuxuu yahay waad fahansiinaysaa inta badan on call doctorkay la hadlayaan haddaanay arrintu u baahnayn inaad dhakhtarka qabatid marka 24 hours buu jiraa dhakhtar aad ama la hadli kartid ama advice la weydiisan karo haddii wuxuu yani wax degdega isla maalinta u baahan in wax laga qabto uu yahay laakiinse badana waxay ku oranayaan aroorta maalinta ku xigta soo wac haddaan ballantaadu urgent tahay marka waxaa jirta ballamo kala nooca midna waxa weeyaan ballan oo loo baahan yahay same day appointment ama ballanta isla maalinta ah oo arrintu yani arrin u baahan 24 hours gudaheed in wax laga qabto kuwaas definitely waxaan oran lahaa ku celceli reception waxaad ku tiraahdaa waa very urgent markaasi dhowr su-aal ku weydiinayaan oo GP-ga kula xiriirayaan haddiise tahay arrin u baahan yani wax laga qabto u baahan laakiinse aan u baahnayn maanta wax laga qabto for example aad ka qaban kartid wiilka dambe ama laba wiig soo socda ama wiilka saddexaad waxaad oranaysaa ii sameeya ballan pre-bookable appointment wax la yiraahdo GP-yada qaar baa leh ma wada leh laakiinse GP-yada waxay leeyihiin same day appointment oo ballamaha loogu talagalay isla maalinta ah iyo waxaa jirta ballamo aad samayn kartid oo maaragtay dhowr wiig ka hor aad sii ballansan kartid haddaana wuxuu urgent aanu ahayn marka waxyaabahaas oo kale jirta oo aad GP kala xiriiri kartid adiga arrintaada og se wuxuu hadduu aad iyo aad emergency u yahay aad GP-gaaga ballan ka weydid oo aanad doonayn inaad accident emergency-ga dhakhtarka aanad badan waxaa jirta qolo la yiraahdo 111 aad la xiriiri kartid oo iyagu laftigooda isla maalinta kula kulmaya ama kula hadlaya so waa GP out of hours baa la yiraahdaa iyagana laftigooda waa la helaa so siyaabo fara badan baa jirta sida GP-ga ballanta loo helo laakiinse waan ogahay inkasta siyaabaha badan ay jirto ee aad iyo aad u adag tahay sida yani appointment loo helo